Kullan Looga Hadlayay qorshe hawleedka magaalada Baydhabo oo ka qabsoomay howlka qorsheynta ee madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa waliba qaban qaabay maamulka degmada Baydhabo oo u qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah qoysaska bogtaale iyo guddoomiyaasha kulankii inta badan looga hadlay sidii bulshadu hanjeedii lahaayeen baahiyaha ku jira degmada qoysaska bogtaale oo reedan ka nagadi magaalada Baydhabo iyo guud ahaanba Koonfur Galbeed iyo inta badan ku hadlay baahiyaha ay qabaan sidii linka dhis lahaay minyo jiifadaan Abdullaahi Ali Watiin guddoomiyaha degmada Baydhabo iyo bulshada sharxad dheer ku sii waliyaaban qabsoomay maamul jeeyo ana bulshada reer Baydhabo in sheegay intii ka dadaal doonaan sidii lan fuli lahaay mashruucyadii hajeediyan oo degmada ku binaan horna walaal geegan dalaha ku kormee laakiin hadii maalin ka walaalo gobol may boo walbadan may boo ya qabsoome eegay ka damay bandalaha ka bandhig review-ga saddexaad Baydhabo walaal may boo qorshiye dexity lama sin la dhaafay dexity walaal may boo in qabsameen iyo walaal may boo oo wiilin qobana iyo walaal hadda may baad may boo qabshan baahan in may boo may muhiimad may boo ya dareemasan marka insha Allah fikirkin may boo eedanka ma sintin inta tiimisan haytan koox haytan fikisha may boo qorin meelaha qorin ka baad may raaysa buugi may boo ya la geli doona ka baad may boo hadana sidii ku fuli fadi may boo aysan astan sidii may boo ku fuli fadi ya may boo insha Allah ya gal doona may eedanka ma nagay eeda IOM iyo UN Habitat oo la madisan la dhaaf may boo howlo may boo yo ku howlanaayeen si Baydhabo may boo bulshada Baydhabo iyo maamulsho iyo may boo aan sheegada fadan waliba isku waafaqsi may boo lan sheegada lahaay marka may eedaysan ka buura rajiyay in may boo aysan bulshada may boo iskiirnaatan bulshada may boo wal qabsadaas lan shakhsi may boo dabaan wal mataro laakiin lan kadib may boo hal qof inta afar qof lama qof soo haday ka fayle lama boo sidii may boo kasi fikir fayle marka fikirka oo isku daray ya may ku bay boo wala taabado kor mustaqbalka may boo lihigsada kor may boo ya ku baayo meedan kama hadnagay wasaaradda qorsheynta oo dabcan barnaamijkan juhud dheer hageliyay oo ma raayis ingeek may heerkan hadeeri dabcan geek meelana may boo Baydhabo naqshadi Baydhabo may boo meelan qoronto Baydhabo mustaqbalka naqda fadimay boo meela ka sawiranta sharciga dhulka may boo may raayis qorinyi diyaaro may raayis mashaariic may boo baahnaan may raayis diyaaro marka insha Allah mar jana Baydhabo shanta sano hadda to bilaan naftanin ka samee in isbedel badan oo muuqdo may boo insha Allah la ka aragdo may boo ya rajeen Ahmed Madoobe Nuuna wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gabagabadii meelaasay ku hadlay sheegay intii kan wasaarad ahaan iyo qorshayahan sidii Maasharicyo Horumarineet iyo ku fuli lahayn guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed iyo lagu falanqeynaa wixii noo qabsoomay in ay u ahaa wax faa'iido keeni doon waxaan kaloo rajeynayaa in muddadii inta la fadhiyay aad kaga faa'iideysateen inaad soo jeedisiin talooyin badan oo wax ku ool ah oo wax ka qaban doono horumarinta guud ahaan Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo marka waxaan kali aan ku soo gabagabeynayaa mar walba waxaan naga go'an dawlad ahaan in annagoo isku duuban annagii bulshada aan ka shaqeyno horumarinta deegaanadeena taasna waxay ahayd dabcan waxyaabihii uu ballan qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo ballan qaaday in mashaariic fara badan ee horumarineed uu fulin doono iyo in dawladda loo soo daadejin doono bulshada ay tala ka yeelan doonto taas ay qayb ka ahayd maanta waxa meesha ku qabsoomay waana sii wadayna hadduu alla idmo maamulka degmada Baydhabo ka howlan sidii Maasharicyo Horumarineet Horle Loogu fuli lahaay degmada Baydhabo sida reedan soo ku wadooyinka walbarashada caafimaadka iyo sidii minatalanka dhis lahaay qoysaska bogtaale reedan ka nagadahay magaalada Baydhabo si aan helaan reedan didiyo fayla Faisal Dayo Raadiyo Television Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo